Soomaalida statisticskeeda markaan eego waxa ugu badan ninka milyan iyo dheeraad gaadhay wuxuu ka warramaa kubadda cagta. Manchester baa badisay, shalayna liigi halkaasaa badiyey, kaasaa badiyey. Ka ku xiga waliba Kenya kaasi idinla jooga, ka ku xiga bahalkiisa ugu badani waa heesuna 900 kun iyo dheeraad bay marayaan. waxaan eegay cid webpage loo wadaado bal ugu dhowaada diin wax sheega oo webpage isagu leh wadaadada inta badani ma laha. Sheekh Dirir baan eego 300 iyo waxoogaa 400 wax dhiban buu leeyahay. waxaan uga dan leeyahay webpageskeena ama waxeena ugu tirada badan leh haddii ama shay taafiha buu ka warramaya kubadiya wax la nooca ama macsibu ka warramaya hees iyo wax la nooca. wixii intaa ka soo hadha kuwa ugu caansan baan eegay waa kuwa reeraha isku dira. reer hebel ba maanta tuban laga dilay, reer hebel baa caynkan ku dhacday, reer hebel baa cayn ku dhacay. waa kuwa noocaasi ah kuwa iyaga ugu caansan. nin nimanka social media ka shaqeeyo caddaana ayaa nin sheekho wadaadii wuxuu igu yidhi oo ay kambaniya isugu yimaadaan shaqo ayaan idhi buu yidhi war annaga kaayaga horta ma eegtay kaayaga maxaa ku jira. markaas wuxuu igu yidhi laakiin anuu Soomaalida bahladooda maan eegin, social media maan eegin, laakiin haddaad 2 cashay siisa buu yidhi waan kuu keeni karaa Soomaalida social mediaheeda. 2 casho iga maqnaa buu yidhi. deetana wuu igu soo noqday wuxuu yidhi idinka waxaa idinku badan dadka madaxa ka xanuunsanaya. ونن حالته وان Soomaali ahayn oo Soomaali aqoonin laakiin markuu translate gareeyo baaday wanan cilmiga aqoontan leh wuxuu yidhi waxa daawataan waxay u badan yihiin dad aad moodayn wax u dhimayeen. TikTok baa furaysaa buu leeyahay gabadh qaawan oo sii socoto soo waxna sheegi maysa buu yidhi way sii soconaysaa soo soconaysaa marka ma qof waa la miyaanay ahayn buu leeyahay ilaa waxna kuma sheegin intay marada dhigato bay sii socotaa soo socotaa buu leeyahay waxna kama hadlayso. marka xataa umamka kale markay eegaan وحين وحي أصاب حساتا